waxaa maalintii shalay ahayd oo bishii July ay ahayd 7 ka dhacay Hotel Dekare kulan hordhac ah ay isugu yimaadeen dowladda federaalka iyo madasha mucaaradka. madasha mucaaradka oo ay runtii qayb ka socotay madashii mustaqbalka oo aysan ku jirin labada maamul goboleed Axmed Maxamed Islaan iyo Saciid Cabdullaahi Danne oo ay runtii madashii samata bixinta qayb kamid ay joogeen oo niman erga ah oo runtii wakiilo u ah intaasba ay meesha ka soo wada qayb galeen. maxaa laga wada hadlaa marka? waxaa laga wada hadlay arrimo badan oo runtii hordhac u ah, waxaana dhexdhexaadinta howlahaas waday ama ku dhex jiray dowladda Turkiga nimankooda sirdoonka ah sida horeba aan ula soconay. marka maxaa ka soo baxay? maxaa lagu ballamay? waxaan hadda maanta ka falanqoonaya kulankii shalay ka dhacay ee hordhaca ahaa ee runtii mucaaradka iyo dowladda federaalka isugu yimaadeen waxaa si weyn ugu dhex muuqday dowladda federaalka iyo madasha nabad iyo nolol, madasha mustaqbalka oo runtii ay ka maqnaayeen maamul goboleedyada dadkii matali lahaa. runtii door weyn halkaas kuma aysan lahayn maadaama iyaga khilaaf aad u ballaaran, kala qaybsanaan, hoggaan la-aan intaba ay mar hore waxba ragaadisay. waxaa si weyn isu soo abaabulay oo runtii doorka muuqda ee waxa runtii mucaaradnimada ah meesha ku fadhiyay madashii nabad iyo nolol. runtii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisii dad ku matala inkastoo aysan madaxda sarsare joogin, laakiin rag lawyer ah, rag wakiilo ah ayaa ka joogay dhan walba. hadday noqoto dhanka dowladda waxaa joogay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac iyo waxaa joogay Guutaale iyo waxaa kaloo joogay guddoomiyaha dastuurka Soomaaliyeed. dhanka nabad iyo nololna waxaa ka socday maxamed cabdirasaaq oo aad runtii wada taqaanaan ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee hore iyo rag kaloo fara badan oo khubar ah oo aqoon-yahan ah ee ka socday dhanka nabad iyo nolol. marka nabad iyo nolol door weyn bay ku lahayd meeshii, inkastoo khilaaf aad u rigaadiyay nimankii madashii samata bixinta iyo madashii mustaqbalka aysan meesha waxba ka joogin. waxay hadda u muuqan doontaa wada hadallada sida weyn u ballaaran oo runtii ay kusoo beeri doonaan sida la sheegaya dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo rag badan oo dowladda Yurubiyaanka ka socda. marka kulamadan hordhaca ah ee runtii heshiiska lagu wada yahay oo dowladda laftirkeeda ay qayb ka tahay soo qaban qaabisay, maxaa ka soo bixi doona? waxaa ka soo bixi doona in runtii waxaa muuqata in madashii mustaqbalka maalintii ay dagaalka galeenba oo ay qalalaasaha ka kaciyeen magaalada Muqdisho in ay runtii shaashada iyo kalsoonida iyo runtii waxyaabo badan ay dib u dhaceen. iyagana ay diidan yihiin doorka ay ku leedahay nabad iyo nolol meesha. maatanka nabad iyo nolol especially waxaa sii diidan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo leh ma wada fariisanin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa ilaa apologize aniga la isiiyo. marka apologize sida goonida ah loo siinaya ama runtii raali gelinta sida goonida loo siinayo oo wax dad badan ay isweydiinayaan. marka waxay ka soo baxay shirka waa ka warsugeena hadduu ilaa ka noqdo kulankaasi todo runtii ka dhici doona isla magaalada Muqdisho hotelka Dekare.